واتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقسيال ملك سواء جوكتان هل كأنا قد دقسنا سان وراديو سومال وين سيديت برتيلة برنامج كان ما أنتم كوساب سنة دقسيال عذرا كودا وضناها وإنت بدن waxyaabaadka keena iyo waxyaabaadka looga hortagaba oo inoo faahfaahin doona tutor maxamed xaashi tutor waxaan kugu soo dhaweynaa barnaamijkan joogtada ah ee 3 isbuuc dhaafka ee aan ka baxa radio Soomaaliya ee aad soo diyaarisid ku soo dhaw tutor waa ku dhawahay Mr. Ahmed aad runtii ku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad markasta arrimaha bulshada aad ugu qaadataan waa runtii arrin mudan in lagu dhiirigeliyo oo ku amaano waxaan ka hadlayaa oo si kooban waqtiga kooban leesay waa hadli doonaa cudurrada ku dhaca wadnaha sidaan ogsoonahay wadnuhu waa xubinta jirkeena ugu muhiimsan oo qabata shaqooyin muhiim ah oo haddii wadnahaasi ama hawl gobo ama shaqadiisii qaban waayo qofkaasi ay gelayso khatar noloshiisa gelayso wadnuhu waa xubin ku jirta saableyda dhinaca bidix bay xigtaa waa xubin muruq leh wuxuu ka kooban yahay wadnuhu 4 qol oo kala sarreeya 2 qol oo sare iyo 2 qol oo hoose marka 4ta qol laba kastoo qolba waxaa kala qaybiya gidaar baa u dhexeeya si labada dhiig ee ay kala sidaan aan isku khadamin labada qol ee sare inta badan waxa weeyaan dhiig baa ku soo aroora oo dhiig ka yimid qolka midig ee sare ee loo yaqaan left atrium waxaa ku soo aroora dhiig ka yimid jirka madaxa ilaa adimada halka qolka sare ee bidix uu ku soo arooro dhiig ka yimid waxaa ka yimid sabab ka yimid sidoo kale labada qol hoose waxa weeyaan iyagu dhiig way tuuraan waxaa loo yaqaanaa ventricules baa loo yaqaanaa dhiigga way tuuraan dhiigga wuxuu tuuraa waxaa qaada waxaa loo yaqaanaa aorta halbowlaha weyn ee dhiigga qaada markaa jirku gaarsiiya iyo mid ka baxa qolka midig ee hoose oo dhiigga gaarsiiya sababka gaarsiiya marka labada 4ta qol waxa weeyaan caadi ahaan laba dhiig oo kala duwan ayay xambaaraan dhiigga jirka yimaada badanaaba waa dhiig aan saafi ahayn oo ay ku yartahay waxaa loo yaqaana oxygen ku yartahay laakiin dhiigga wadnaha ka baxa qaybta bidix ka baxa wuxuu qaadaa dhiig saafiya oo oxygen sida si markaa jirkii loo gaarsiiyo oxygen loo baahnaa wadnuhu wuxuu ku kooban yahay oo kale qayb muruqa ah xoob ku dahaaran iyo waxa loo yaqaano haniye ama loo yaqaano valves oo kala qaybiya qolalka wadnaha kala qaybiya marka valve-kaasi waxayaan wuxuu saacidaa oo qayb ka yahay in dhiiggii aanu meeshu ka yimid dib ugu noqon hadduu wadnaha ka yimidna wadnihii ku noqon qaybta sare ku noqon hadduu xiidka ka baxayna aanu dib ugu noqon marka waa sidii kadinkii oo kale waa sidii albaabkii oo kale marka waxaa loo yaqaano valves waxay xakameeyaan in dhiiggii hal dariiq u socdo oo dhiiggii meeshu ka yimid dib ugu laaban marka haddaan intaa kusoo koobo waxaa jira markaa wadnuhu shaqadiisu muhiimka waxay tahay waa bom weeyaan dhiigu tuuraa markaa waa laba fays waa laba marxaladood marxalad uu dhiiggu tuurayo waxaa loo yaqaanaa systol uu dhiiggii ka baxayo wadnihii ka baxayo iyo marxalad uu dhiigga qaabilayo waxaa loo yaqaana diastol marka labadaa mogtii marxaladood ayuu wadni ku shaqeeyaan maruu dhiiggu tuurayo iyo maruu wadnihii kala baxayo oo dhiiggii qaabilayo haddaan markaa u gudbo oo aan u gudbo bal cudurrada ku dhici kara wadnaha ku dhaca
cudurrada waxaa loo qaybiyaa waa laba qaybood. waa cudurro ilmuhu ku dhasho oo intuu ku jiray uurka hooyadii uu soo qaaday oo markaa isagoo cudurkii qaba ilmihii ku dhashay. isagoo waxaa loo yaqaanaa congenital ama waxaa loo yaqaana afka iskuliska medfoda yerfel. iyo cudurro qofku uu qaado intuu nool yahay ama intuu yar yahay ama haweenaado ama hayraado moogti. waa labada nooc. waa cudur ilmihi ku dhashay oo intuu ku jiray calooshoodii soo qaaday, ha noqdaan cudurkaasi mid uu ka qaaday cudurro ku dhacay hooyadii ku dhacay, ama hooyadiioo daweyn qaadatay, ama cudur kaloo si kale ku dhacay dee moogtii ku dhacay. marka cudurrada u badan ee ilmuhu ku dhasho waxa weeyaan waxaa ka ugu muhiimsan marka gidaarkii aanu sheegnay ee kala qaybinayey labadoodna kala qaybinayey ayaa mar waxaa ilmuhu ku dhashaa gidaarkaas oo daloola. waayo caadi ahaan wadnaha saliimka ee caafimaadka qaba dhiiggu iskuma darsado. markaa laakiin inta badan ilmuhu wuxuu ku dhalan karaa in gidaarkaa u dhexeeya labada qol ee hoose ama labada qol sare u dhexeeya in mararka qaar ilmuhu ku dhasho meeshiiyo dolooshamo oo doolkii absan waayo, ama xididada qaarkood oo xididkii dhiigga raacayay kii xidid geenayay oo qudhooda mararka qaar isku furan. marka waxay keentaa in dhiiggii isku khaldamo, labadii dhiig ee kale ku kali jiray laba qolku jiray in ay isku khaldamaan oo markaa dhiiggii nadiifta ahaa iyo kii wasakda ahaa markaa labadii dhiig isku darsadaan. marka cudurro inta badan qaarna de waa halis badan yihiin. waa haddii markii la qalin oo aan laga gaadhin oo qalin lagu sameyn ilmuhu inuu noolaado way adkaataa badanaaba. qaarna marka ilmuhu dhasho oo loo ogaado oo la baaro ayaa moogtay sanadka hore ilaa ayaa la qalaa moogta. marka waxaan kaloo u gudbayaa waxaa jira cudurro qofku qaadi karo intuu nool yahay. cudurrada markaa qofku wuxuu ku qaadi karaa waa laba marxadood. intuu yaryahay iyo markuu weynaado soo garan. marka haddaan kasoo qaado cudurrada waxay ku dhici karaan ama murqihiibaa wax ku dhici karaan, waxaana ku dhici karaa, ama xididii wadnaha dhiigga siinayey ayaa wax ku dhici karaan, ama xuubka wadnaha ku dahaaran laftigiisa ayaa wax ku dhici karaan. marka waa kala qaadayaa cudurrada ku dhaca wadnaha ku dhaca waxay noqon karaan saynu sheegnay cudurro ku dhaca qofku intuu yar yahay. cudurra inta badan waxaa keena iminka adduunkan horumaray badanaa kuma badna. waxay ku badan tahay dalalka soo koraya ku badan tahay badanaaba cudurka wadnaha ku dhaca moogta carruurta ku dhaca badanaaba dadka daayar ku dhacda daada yar. waayo waxaa keena inta badan bacteria keentaa. bacteria ku dhacda qumanka ku dhacda ko kale yaqaana. marka halkaa marka ku dhacdo dheecaankay sii dayso ayaa uu dhiigga raacaya. dhiigga markuu raaco waxaa too yaqaana sertolisiin. markuu dhiigga raaco haniyahan sheegaynay valfka ee wadnaha kala xidha dhiiggii kaas ayaa dhac soo gaaraya. marka badanaa moogtay cudurka u badan ku dhaca carruurta ku dhaca adduunka saddexaad waa cudur ay keento badanaaba bacteria keento loo yaqaano sertolisiin loo yaqaano. marka valfkaas ayay dhaaca galisaa. marka valfkaas waxaa ku dhici karaa laba cudur baa ku dhici karaa. in valfkii oo aanu sheegnay inuu yahay kadan yahay furma yahay. laba cudur baa ku dhici karaa. in dhaawaca soo gaadha uu gaadhsiin karo valfkii ama haniyihii waxa loo yaqaano inuu xidhmi waayo oo markaa valfkii noqdo valf adag oo markaa dhiiggii markuu dhaafo aan xidhmayn markaa dhiiggii qaar soo noqonayo. iyo inuu valfkii furmi waayaba oo moogtay si adag intuu moogtay hog yaraado oo furmi waayo. labadaaba moogtay baa ku dhici kara marxadood loo yaqaano stenos loo yaqaano insufficiency. marka inta badan waxaa keena saan sheegnay cudurka ku dhaca iska daayir ku dhaca waxaa keena bacteria keenta. marka badanaa waa la daweeyaa oo dawaa la siiyaa moogtay waxaa la siiya loo yaqaano penicillin baa lagu daweeya badanaaba. haddii markaa dhaawacu moogtay valfkaasi uu noqdo valf dee halis ku haya shaqadii wadnahana badanaa waa la qalaa oo waxaa lagu bedelaa valf kale oo moogtay la sameeyey. taas waa sii taqaana ku dhacsay xagga valf ku dhacsay.
waxaa kaloo jiri kara murqaha qudhooda wadnaha murqahan wadnihii bamka shaqeeya qudhooda waxaa ku dhici kara cudur baa ku dhici kara cudurkaas wuxuu noqon karaa cudur ama virus keenay ama jirka mataqaanaa sumoobo kale ama dhaawac mogti kasoo gaaray xididii dhiigga qaadiga wadnaha gaarsiinayay markaa dee dhiiggii sidii loo baahnaa u gaari waayey ama qofkoo dee mataqaana dawooyin kala qaato qudhoodii inay dhaawac gaarsiiyaan murqihii gaarsiiyaan waxaan maanta halkan jeclaan lahaa inaan si fiican uga hadlo oo faahfaahsan cudurka badanaaba ku dhaca wadnaha xididada wadnaha ku dhaca waqti loo yaqaano ischemic heart disease qofka markuu hagaan da' gaadho dadka badanaa ama sigaarka caba ama buuran ama dufanka badan cuna ama macaanka qaba waxaweyaan badanaa halis waxay ugu jiraan in xididada dhiigga saada kore u ka hadalnay beriga ka hadalnay ka hadalnay oo kale in xididkaasi adkaado marka xididkaasi adkaado waxaweyaan dhiiggii mari jiray ayaa yaraanaya marka waxaa isbedelaya caadi ahaan xididka badanaa dhiigga qaada ee wadnaha waraabiya caadi ahaan waa sidii waa rawr oo kale waa elastic uu kala baxaa markuu dhiigga qaadayo mugta marka waxaa dhici karta in mararka qaarkood xididkii uu adkaado oo markaa dee mataqaanaa xididkii gidaarkiisii ay ku ururaan ama dufan ama waxa loo yaqaano fat ay ku ururto markaa marka ku ururto gidaarkiisii adkaado markuu adkaado waxaa markaa yaraanaya dhexroorkii waxa loo yaqaano diameterkii xididka ayaa yaraanaya markuu yaraado qofka markaa marxaladda koowaad bilowga yahay waxaa loo yaqaano angina baa ku dhacaa angina waxa weyaan qofku intuu caadi yahay wax xanuun ma dareemo waayo maadaama jirkii uu narsanayo soo garan wadnihii moogtii wuxuu leeyahay awood buu leeyahay jirkii dhiig gaadhsiiyo laakiin marka qofku ama ordo ama jimci sameeyo ama hawl culus qabto waxaa dhacaysa waxaa kala badanaya baahidii murqaha jirku ay jirka u baahnaayeen ayaa yaraanaysa maadaama moogtii dhiiggii dee xoog shaqeynayo dhiiggii loo baahan inuu gaaro murqaha gaaro ma gaarayo markaas waxay keentaa in qofka markaa moogtii xanuun dareemo waxaa loo yaqaano wadna qabad ama anjana moogti markaa xanuunkii wadnaha ka dareemo moogti laakiin qofka markaa dhaawac kale ma qabo ayaa bas markuu hawshii qabto unbuu dareemayaa xanuun soo garan inkastoo ay jirto mararka qaarkood qofka isagoo iska caadiya cudurkaa sheega anjeenaha inuu isagoo iska fadhiya ama waxba qaban ama hurdo kale ama cunto cuno kale kasoo kacdo moogti laakiin waxaa jira mid halis badan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa xididka aynu sheegayno ee adkaaday in uu markaa dhaawac soo gaaro markaa dilaac yar meeshii xididkii gudihiisii ku yimaado marka xididkaa yar dilaacay wuxuu keenayaa dhiig yarba meeshu xididkuu dhiigaya marka uu dhiigo waxaa dhacaysa mararka qaarkood xinjir yar baa markaa moogtii xididka gudihiisii ku samaysmaysa markii xinjirtii samaysmato maxaa markaa dhacaya awal waxaan ka hadalnay kii hore anjeenaha kaas xididkii dhiigguu marayay qof markuu ordo buu dhiiggii dee u baahan yahay jirkii inuu helo kusii mudan kasi waxayaan xididka markuu dilaaco oo meeshii dhiigto dhiiggaas waxayaan inuu xinjiroobaa la dhici karta markuu dhiiggaas xinjiroobo meeshii murqihii dhiiggii u baahnayn ma helayaan soo garan marka waxaa dhacaysa markaa murqahaas ay madoobaadaan waxaa loo yaqaano yarding factor ama loo yaqaano infarction marka doctor aan kaa dhex galo barnaamijka xitaa aad buu u dheeryahay waayo wadnihii waa wixii bani aadamku uu ku noolaa marka xitaa laba barnaamij waa laga dhigi karaa dhibaato ma laha doctor haddaan wixii hore aan faahfaahintooda aan u laabano labada waqti uu qofku bani aadamku wadnihiisii ciladu ku dhici karto waa markuu yaryahay iyo markuu weynaada taa noo sheegtay midka caruurta oo dhahaysatay labada qol oo wadnaha ayaa isku furmaayo way ku dhashaan soomaha caruurta waxay ku dhashaanoo markuu dhasho intuu markuu abuurmayo wuxuu ku abuurmaa in gidaarkii kala qaybin lahaa labada qol kala qaybin lahaa ayaa moogtii cilad ku timid awgeed ay waxaa laga yaaba inuu ku dhasho qolkii hore xidhnayn oo qolkii ama hog taqaanaa meeshii isku furan yahay labada qol isku furan yahay aad haddan tal casri
ahaan joognaa caruurta ku dhashaa isla marka waa la garan karaa laakiin astaamo maxaa lagu gartaa caruurta Soomaali lagu dhalo kale marka maxaa lagu garan karaa wiilka caruurtii la dhalay wiil iyo gabar midku raba ha ahaado in wadnihii uu isku furan yahay astaan noocee ayaa lagu garan karaa caruurtaasi markaan ka hadalno markuu labada dhig isku furmaan haddii ciidanka la socda badanaa waxaa jira ciidanka farbadayn waxaa laga yaabaa wadnaha isku furan xaggana xiiska la xiran yahay labada dhiig caadi ahaan dhiigga badanaa qolka bidixda ku jira ayaa ka awood badan ka midig ku jira haddii markaa dhiigga bidixda ku jira uu badanaa midig soo aado waxayaan dhib badan ma leh soo garan laakiin haddii dhiigga ku jira midigta uu bidixda soo aado waxaweyaan moogta waxaa badanaya dhiiggii oxygenka badanaya marka waxaa dhacaysa markuu ilmuhu ooyo soo garan ilmuhu noqonaya ilmo buluug oo kale midabkiisa madooba markuu ooyo kasta ooyaba ama markuu dhasho waxaa arkayaa ilmihii shmihiisii carabkiisii soo garan farihiisi cidiisii ayay u ekaadeen buluug sida buluugga qalabka kale u ekaadeen soo garan qaarna waxaa laga markay muddo joogaan in lagu arko calaamad lagu arko markuu ilmuhu ordoo kale uu markiiba xiiqo ama daalo uu fadhiisto ama lagu arkaba calaamadaha kuu sheegay waxaa kaloo lagu garan karaa qufac aan bixin qufac joogta soo noqnoqda mar walba soo garan maadaama taqaana isku xiran yihiin shaqadii wadnahii isku xiran ferihiis isku xiran yihiin ilmuhu moogti markasta qufac fara badan oo soo noqnoqda ayaa lagu arkaa moogti laakiin maanta saa sheegtay ka dhawaajisay waxaa lagu jiraa dee waqti casri qalab yeela maanta ilmihii intuu ku jiro calooshoodii baa la arki karaa moogti balbas wixii jiray marka badan dalka horumara dee markiiba qalin baa loo diyaariyaa markuu dhashaba laakiin dhulkeeni inta badan haddaa aragtid ilmo yaroo markuu dhasho ama ooyo u ekaaday bishmihiisii bulu noqdeen cidiyii bulu noqdeen buluug kale carabkii noqdeen bulu markuu waa shakila in ilmahaasi mataqaanaa ku dhashay wadnaxan ku dhashay aad iyo aad ayaa u faahfaahisay oo astaan la garan karo waaye tutore midaan kale oo markuu caruurtii xoogaa ay soo kabcaan oo qanjirkaani marka hore maxaa sababa qanjirkan miyaa bacteria ku dhalanayo kadib infectionkii ka dhashay miyaa wadnihii uu gudbaayo xoogaa taas bal iyadana sii faahfaahisa faafacanta waa adduunkeena kulle marka dee adduunka horumaray waxaa iminka cudurkaasi uu ku yaraaday maadaama mataqaana dee ay badanaa dee infectionkii ku jiro ay ku yartahay waxaa jira bacteria loo yaqaano streptococcus loo yaqaano marka bacterias badanaa waxay degtaa waxaa loo yaqaano ama koonfurta qubanka ama waqooyi loo yaqaano xoqadaha halkaa markay degto waxay mogtii xoqada markaa wax ku dhacaya mogti infection waxaa loo yaqaano tonsillitis marka ay qubankii ay malaxaystaan waxay mogta halkaa waxay almost bacteriada dhiiggaba raacayso laakiin sun ay sii daynayso ayaa dhiigga raacaysa inta loo yaqaano streptolysin loo yaqaano marka sida markay dhiigga raacdo haniyihii meesha ku sheegay valveska ku sheegay ay degaysaa mogti halkaa markay degto jirka wuxuu sameynaya difaac u sameynaya marka difaac u sameynaya yaqaano antigen antibody baa dagaalamaya soo garan difaac jirka dagaalamaya marka markay dagaalka ay ku dagaalameen mishii lagu dagaalo laftigeedii ay waxaa ka dhacaya dee dhaawac soo gaaraya waayo suntii dhiigga raacday iyo jirkii difaac jirka si difaacayay ay waxay ku kulmayaan valveka soo garan marka waxaa soo gaaraya dhaawac valvekii soo gaari mogti marka qaabkaas badanaa ku yimaadaan marka waxaa markuu dee meeshii dhaawac soo gaaro waynu sheegnay waxay noqon kartaa laba arrimood in ama valvekii ama haniyihii aanu xirmin waayo mogti awal mogti waxaa rabar oo kale ayuu ahaa kala baxa markuu dhiigu dhaafayo saa mogti u xirmayu ahaa marka inuu dee ama xidhmi waayo oo dhagaxa noqdo ka kanaado meesha meel dhaawac mogti waxaa furaysa mogti qolof baa furaysa iyadoo mataqaanaa dee iska furmo noqonaysaa madalaba waa tahay marka tutore marka taadan ku gabagabeeyo badanaa markaa qofka haddii taa lagu ogaado la baaro dhiig laga qaado haddii inta aanu jirkii bacteriadii raacin hore laga daweeyo lagu ogaado ayaan rajadu fiican tahay laakiin haddii xanuunkii dee aan la ogaan oo qofkii utaqaana dee badanaa sida maanta soomaali o kale ma jiraan dadka badankooda qaar baa baada ku nool tuulooyinka ka jooga dhakhtarana haysan waxaa laga yaaba jaa goor ay dee wadnihii dhaawac soo gaaray in qofkii la keeno oftaa la keena yaaba midaan oo valvahan uu adkaanayo isagana ma jirtaa marka qofkii neeftuurka ka sokooyin waxyaabaad kale iyadana lagu garanayo ma jiraan
fact waxay inta badan wali ku sheegay valve-kan wuxuu badanaaba wuxuu xakameeyaa in dhiiggii si habsami u socdo oo iswadaara moogti marna baxo marna soo gala moogti haddii markaa dhiiggaasi valve xirmi waayo dhiig fara badan baa wuxuu kusoo harayaa wadnihi kusoo haraya moogti marka wadnihi kusoo haro wadni markaa uu bararaya dhiig moogti intii ka badan dhiiggii bixi lahaa qayb ka mid ah baa kusoo noqonaysa moogti marka bararkaas waxay keenaysaa wadna xanuun qofkii wadni xanuuno marka qofka moogti jaal badan yeesho lugihii bararaan xiiqo iyo wax lamid ah waa tahay tusaaloo kale tutora inkastoo barnaamijka waktigiina uu kaabiga nagu hayo oo 1 daqiiq kadib aan soo gabagabeynayno laakiin isbuuca dambana hadduu eebbe idmo waxaan uga hadli doonaa cudurada isaga gudihiisa ku dhaca ay xididada ka xirmaan iyo sida uu u quudiyo maxay ahaato wadnaha inta kale iyo sida uu sanbabaha dhiigu ugu soo qaataba hal mid wadnuhu isaga wuu koraa soomaha ilmuhu wuu lo koraa ma jiraa marka maxay ahaato caruur ilmanimadoodii wadnihii uusan koraynin oo uu sidii uu iska ahaanayo ama taas ma dhici kartaa in wadnihii isagiiba uu kori waayo mafaabti hore ilmuhu ku dhasho badanaaba waxay dhici kartaa in uu khilaaf ku yimaado murqaha wadnaha iyo baalbayaasha laakiin badanaaba dee ilmuhu markuu koro koritaanka wuu isu xiran yahay koritaanka ilmuhu hadday maskax tahay hadday keli tahay hadday tahay tahay wadna tahay badanaaba waa koritaan isku xiran oo qofka caafimaadkiisa iyo koritaankiisu badanaaba isku xiran yahay moogti marka baahida markasta ilmuhu koraba dee waxaa loo baahay in wadnihii koro kelihii koraan wixii ay moogti wada koraan aada iyo aad guntii iyo gabagabadii ayaan soo gaarnay tutore hadduu eebbe idmo waktigoo gabaabsi nagu ah dhegaystayaal barnaamijkeenan maanta inta ayaan kusoo gabagabeynayna hadduu eebbe idmo isbuuca dambena tutore waxaad ka hadli doontaa xiriirka ay leeyihiin wadnaha iyo maskaxda keliyaha iyo sanbabada iyo isaga maxay ahayd cudurku ku dhaco saameynta ay ku yeelanayso organada kale waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal aniga tutorkaba sidaas iyo nabadgeli iyo isbuuca dambe hadduu eebbe idmo sidaas iyo macasalaam كبرات